halkan waa dhulbeereedka deegaanka Gooyaale ee duleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo. Boqolaal beerood ayaa laga hayaa shaqooyin ay ka mid tahay in qashinka ku baxay beerta laga falo si dalagyada 2 bil ka hor la beeray aan u waxyeelayn. Dalagyada kala duwan ee waqti roobaadkan deerta la beeray ayaa si qurux badan u soo baxay oo beeraleyda rajo gelisay. weliba misigada, galeyda, digirta, sisinta iyo looska oo ah waxa ugu badan ee la beeray. dad ka mid ah kuwa barakacayaasha ee magaalada Baydhabo ayaa fursado shaqo oo dhaqaale ay ka heli karaan u arka falista beerahan, waxaana halkii tacab ay ku falaan 50,000 oo shilinka Soomaaliga ah sida ay ii sheegeen haween kuwa beeraha shaqada ka haya. beertun ashinga la ka fale barab bujo ii dhereere yalla are kashinka safalahay lam sahiraaban nimiha bigale disa wa ka bihe maalintii hal taab i barlay fali hal taab lay in fal mid lam lay in falam tib hog ko ge ko walaawa horon dareere ge kuna has adi ba noqday noogi shalay ki jire ge has gooye saasa hal beero korme ku xoog sidaas inta beero han ban korme godaas gornyo guriday gornyo gasa goobay siday hado beero habeheena beerak faladahay beerti la abuurki habahi meeli kashinle inta liska fala la dil falalay inta raashinka bahala ka amawa inta tidaalahay oo balan falno walba inta bahaan hedib kuma beerti ka taabaha inay ka falahay inay kashinkina liska falno walmay ka hala saasanta ka dhimadahay mega beer falay tula beertu afarti gaas hadahan oo haagleeyay ngad shalay hana safari geega lamaaday ee هذا بلونتم إيشانتي بيرتون لك رفضي ولا يفوب أو ريم ما روب كي أكون بيربوي أنا قاري أتكلم halkan waxa fadhiya tiro tobaneeyo oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee deegaanada xaalado abaareed ugu soo barakacay ee Baydhabo nolol u soo raadsaday. waqtigan roobabka da'ay waxa ay ku iibinayaan suuqan oo ah suuqa dugaandug oo dad barakacayaala ay wax ku iibsadaan waxyaabo ka soo go'ay dhulka oo sanadkiiba marka soo go'a beeraha sida mirahan oo aad u jeedaan oo aan gacanta ku hayo iyo cagaarka kale ee dadkan ay iibinayaan waxay ka raadiyaan nolol maalmeed aad bay ugu faraxsan yihiin inay dadka ka iibiyaan. bulshada magaalada Baydhabo ayaa noloshooda ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo xoolaha. rajada iyo dalagyada bil kadib soo go'i doona waa mid nolosha dad badan wax ka bedelaysa iyo dhaqdhaqaaqa suuqa goday ee magaalada Baydhabo oo dalagyada beeraha ka soo go'a lagu iibiyo. Yuusuf Sheekh Shuceeb waa milkiilaha beero ka mid ah kuwa aan booqday ee ka kooban 3 hektar 8 sano kadib oo dalagyadii uu beeri jiray roob la'aan u abaaroobi jireen. hadda marxaladan wuxuu ku sheegay mid inuu arko ugu dambeysay 10 sano ka hor. haddaba rajada beeraleyda ay ka qabaan in dalagyo fiican ay u soo go'aan halkay bay la eg tahay. beero xal shookin ku ramay beeroon abaarto badanayeen badan abaar leeyahay sanadka alxamdulillah daraga ma sha Allah kaliya kayaal digra kayaal sasinga kayaal miski taal mayba eeda macna jire ka faraxsana qadama tan horba mani ban ama aranka ay tumansanini kadib way aranka saxmal helo meel ay tumansani la ku hada todoba سنة لا تنفوق عمل مقبل لما سنة 10 سنة وتبغى مقبل سنة كده الموداني أبورني فلني هل هقولك أوتي بس ولا يبومني ومد كمده ورها أو آد بيا ودقي روابك كده أي مجالات Baydhabo ee mahigaanka ahaa wartan waxay ku taala deegaanka Gooyaale oo ah duleedka koonfureed ee Baydhabo waxa ku hareeraysan boqolaal dhul beereed oo la abuuray. beeraleydu waxay u arkaan xilligan deyrta inay tahay waqtigii barwaaqada oo beeraha si fiican dalagyo ay ugu soo go'i doonaan. Muxuddin Xusni, Universal TV, Gooyaale, duleedka